diyaaradahan duuliyaha lahayn ee Mareykanka ayaa waxay duqeyn dhinaca cirka ah ee la beegsadeen saldhig xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaan ka tirsan gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug. War ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya saaxiibadooda caalamka ay ku guuleysteen inay duqeyn dhinaca cirka ah ay ku burburiyaan saldhiggii Al-Shabaab ay ku lahaayeen tuulada Hareeri Gubadle oo qiyaastii 20 kiiloomitir dhinaca bari kaga beegan deegaanka Wabxo ee gobolka Galgaduud. Sidoo kale dowladda Soomaaliya oo faahfaahinaysa duqeyntaas ayaa sheegtay in lagu dilay in ka badan 200 xubnood iyo saraakiil ka tirsan ururka Al-Shabaab. walow aysan jirin warar madax bannaan oo xaqiijinaya warka ka soo baxay dowladda Soomaaliya. Duqeyntan uu Mareykanka la beegsaday xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa ku soo beegmaya xilli maalmo ka hor saraakiil ka tirsan sirdoonka Mareykanka ay ka codsadeen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden in dib loo bilaabo duqeymaha lala beegsado ururka Al-Shabaab. Maxamed Bowtaan Yuusuf, SBTV, Muqdisho.